jaamac haabiil wuxuu cali ka mid ahaa magaalada Berbera iyo agagaarkeeda Soomaalidii degi jirtay hilaadana wuxuu noolaa intii u dhaxaysay bartamihii qarnigii 19aad iyo horraanta kii 20aad sanadihii ugu dambeeyay 1880nadii wuxuu ku jiray xeebaha waqooyiga raggii gumaysigii Ingiriiska ku soo dhaweeyay markii dambana joogitaankiisa taageersanaa sida laga garan karo tixaha naga soo gaaray qaarkood taas ayayna ahayd sababtii colaadda soo ay muddaba uga dhex aroosnayd isaga iyo hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdilla Xasan tuducyah alqabsi leh oo intooda badan shakhsiga wadaadka uu aad ugu wareemay ayuu marba tirin jiray kuwaasoo isaga qudhiisa caan ka dhigay maansayahanimadiisana soo banbixiyay gabayada cali jaamac laga hayo waxa ila foolaadsan kanaan maanta idinku jalbeebin doono ee aan u haysto maansada Soomaalida ee baroordiiqda ku saabsan inuu meel sare kaga jiro waxa la yiri cali oo suuqyadii hore ee Berberaad midkood fadhiya ayaa goor garaba waxa la soo joogsaday niman uu garanayay saantooduna ay ka soo jeeday dhulka xoolo daaqeenka ah ee magaalooyinka Sheekh iyo Burco u dhaxeeya markaas oo kale waatan ay Soomaalidu isu wareysatay waxay u sheegeen in adeerkiis xilsi cilmi goolle inuu geeriyooday wuxuu ahaa war uu aad uga naxay oo hadiiba in eebbe been ka dhigo uu ku ducaystay ha yeeshee mar walba sidaad adigu rabto kuuma noqotee xilsi dhimay taana wuxuu cali rumaystay nimankii socotada ahaa markii ay ugu celceliyeen iyaga qudhooduba inay goobjoog u ahaayeen kolkii budda loo dhaadhiciyey iyo kolkii lagaga yimid kii uu fadhiyey ayuu cali ka kici waayey qorraxdii baa ugu dhacday waa keligiis markii la dhaqaajin waayey baa laga kala tegey wuu gorrosiyo madaxa ayuu foorinayaa garka ayuu labada low ku hayaa goor dambe oo mugdigii uu magaaladii wada daboolay ayuu luga aan tabar lahayn hoygiisii ugu luuday dabadeedna gogashii buu isku tuuray wax yar kadibse wuu ka soo booday cashadii baa la soo hordhigay suu waa iska fogeeyey waa la qodqoday jawaabse waa hidin waaye sidaas buu waagii ugu bari barqadii kolkay tahay ayaa waxa u yimid nin ay waday ahaayeenoo markuu dareemay in wax si ka yihiin doocdoociyey dabadeedna ka soo saaray xanuunkii uu la gubanayay iyo wixii ugu wacnaa ninkaas oo la oran jiray Faarax Bawdoole ayuu u deexday una sheegay galinkii dambe ee xalay gabaygii uu xilsi ugu baroortay kaasoo uu ka hormariyay arar culusoo hadiiba laga garan karo murugadii haysay iyo geerida loo soo sheegay walbahaarkii ay ku abuurtay isaga oo haaraamaya nimankii warka baas u soo sheegay ayuu ku bilaabayaa galgaladkii xalay iyo Faaraxow la'aantayda gogashaan ku jiibsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayay dar gurigii ka yimid baa warbaas iila soo galaye gablamooyin waxay sheegayeen guuldariya hooge geeridii xilsay ii wadeen gacal ha waayeene gabbal baa u dumay reerihii galiga boociyii leh abidkii rag waa go'i jire tanise waa gowe lixaroo u wada gaar ahaa gocanayee mooye erisadaas ay ilmadu da'ayso markuu ku arartay ayuu ku xijiyey tilmaamo wacan iyo ammaan qoto dheeroo uu xilsi ku bantooqay ayna la ahayd inuu gaar u lahaa ammaan badan oo ruuxa nooli in lagu sheego uu jecel yahay kii dhintaana uu rabi lahaa wixii ka dambeeyaa inay ku sheegaan waa geesinimo waa xaajo aqoon waa deeqsinimo waa aqoonta fulaanka fardaha waa dulqaadka sokeeyaha lagula xaalo oo waa daafaca reerka waa 6 tilmaamood oo gabyaagu uu xilsi cilmi uga samri la'yahay baroortana ugu wacan isaga oo haddaba ina baraya geesinimadiisii garyaqaannimadiisii deeqdiisii iyo martida kolba u soo hoyata siduu ugu xilqabi jiray ayuu yidhi midi waa haddii laysgalo oo geel la kala qaado gurmad noqonayaa iyo annagu guuto bixinaaba geelyaalihii fule markuu geelala furhooraayo rogaalkuu garaangelin ogaa gocanayee mooyi garaad kaatay xaajada gurracan guurti kala maagtay haddii geedka laysugu yimaad golaha waayeelka nin waliba hadduu gees damco oo giijo madaxiisa wax la wada gorfeeyaba haddii la isu geyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu gaafa hadalyaaba guddoonkii la wada raaci jiray gocanayee mooyi gab hadday martidu soo tiraa goobuu nala joogo
godka lagu janneeyo hadduu goosan la carraabo garabsaar rag weeye hadduu gogosha soo daadsho gasiinkii la soo dhigay haddaad gal iyo daadi moodo bakhayl ba isgamiimee intuu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray go'anaye mooye meel kale oo gabayga ka mida ayuu cali inagu barayaa fuulaan fardood maalinta la isugu faano siduu xirsi cid walba uga foori jiray dulqaadkii uu xigaalada u lahaa magaciisii inta dheeraaday meel walba gaaray iyo maantii ay daafaca reerka joogto sidii isaga ay isugu hallayn jireen wuxuu yidhi gugoo da'ay aroosyada haddii gawda laga saaro shir gurmada haddii loo kaco iyo gob iyo reer aada gammaan naaxay heensaha haddii guudka laga saaro waa gelin isdaawade halkii garangar loo joogo gola igu bannaanaa walle garab la'aaneeda gunnaduu ka soo toocin jiray go'anaye mooy gardarrada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gaadiid la dhaanshuu ahaa gibilmadiidiiye gurad uuna wada saari jiray go'anaye mooy alla wuxuu golxaal u ahaa gadafkii reeraaye magaciisu waa gudubsanaa gaaliya islaane galbeed iyo baraa laga yiqiin goloskii dheeraaye gaashaan biruu noo ahaa go'anaye mooye uu baroortii dhammaystay ee arar iyo dulucba wixii uu odhan lahaa uu yidhi ayuu miyirsaday dib buu isu xisaabiyey wuxuu garwaaqsaday geeridu inay xaq tahay diin ahaan inuu muran ka keenaana ay gaf tahay markaas buu eebba weyne dembidhaaf weydiistay kana duraantay aakhire markii la tago inuu u kaso mar walba dhinaca uu ku sugan yahay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariista korkiisa ha ahaatee markaas buu tixidii ku soo gebagabeeyey adduunyada tan laga guurayo ee gebagabaa joogta ee laga galbaday meesha iyo geeridii maxamed anunbaa gubtahanyoonayoo geesigii tabaye allahayow wax dhan baan gafeeye adigu haygooynin dhegaystayaal wuxuu gabyaagu u baroortaa nin madax ahaayo bulshaweyntii uu ka baxay dhexdeeda magac iyo maamuus dheeri ah ku lahaa markaas oo kale wuxuu soo banbixiyaa dareenka guud ee ku soo kordhay dadka iyo degaanka ay dhimashadu ka dhacday